كتاب الله أحيانا وبالتوحيد أوصانا ففي قرآننا نور يضيء ظلام دنيانا. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعشركii 147 qeybtii saddexaad ee ubadka iyo internetka. muddooyinkii u dambeeyey waxaynu ka soo warramaynay dhibaatooyinka internetku uu leeyahay qoyska. halkaa qeybta waan soo dhammaystirnay. waxaynu haddana ku xojinay dhibaatooyinka internetku uu leeyahay bulshada iyo sida maxay uu saameeyey iyo xalka markaaynu soo sheegnay. qodobka u dambeeya aynu ka warrami doonaa casharada kuwa ka dambeeya wuxuu noqonayaa bal hadda internetku suu u saameeyey qof kasta marka ama qof kasta bulshada ka mid ah qof kasta suu u saameeyey ayaynu ka warrami doonaa. waxaynu eegi doonaa suu u saameeyey qof kasta waa maxay caqiidadiisa, suu u saameeyey akhlaaqdiisa, suu u saameeyey qofka waa maxay markaa waa maxay caafimaadkiisa, suu u saameeyey qofka dhaqaalihiisa, suu u saameeyey qofka waa maxay horumarkiisa iyo ilbaxnimada qofka uu keeni lahaa, suu u saameeyey qofka habdhaqankiisa marka iyo habfikirkiisa siduu u saameeyey marka. waxyaabahaasna waxaynu ka warrami doonaa. maanta waxaan soo qaadan doonaa qodobka koowaad oo ah adlaarul caqadiya, macnaha bal qofku caqiid ahaan qof ahaan internetkana si waa maxay uu inoo saameeyey ayaan eegi doonaa insha allahu tacaala. cashar kasta waxaynu ka eegi jirnay faa'iidooyinka uu leeyahay internetku, dhinaca uu leeyahay iyo dhibaatooyinka uu leeyahay iyo xalku dhibaatooyinka wuxuu noqonaya. marka dhinaca markay diinta noqoto faa'iidooyinka internetku inoo leeyahay casharada hore waa maxay baynu kusoo aragnay hordhaca ahaa. waxaynu eegi doonaa oo keliya bal hadda dhibaatooyinka waa maxay uu leeyahay marka. casharka ka dambe waxaynu eegi doonaa dhibaatooyinka waa maxay xalkooda wuxuu noqonaya. marka waxaa la yihahdaa dhibaatooyinka internetka qof ahaan diintiisa ama caqiidadiisa waa maxay uu u dhaawaca internetka waxaa ka mid ah baa la yihahdaa suhuulatu intiqaadi alafkaar wasuluukiyaat almukhaalifati lilislam wacaqiidatihi. macnaha waxa fududaatay baa la yidhaha qofka in loo soo dariyo ama qofka waxaa laga maxay in ay soo gaadhaan waxyaabo afkaar iyo waa maxay suluukiyaad ama waxyaabo khilaafsan qofka markaa diintiisa marka iyo caqiidadiisa. taasina marka waa maxay waxay keentay baa la yihahdaa marka waa maxay raad aada u halis ah ayay markaa dadkii muslimiinta waa maxay ku keentay marka. iyadoo marka waa maxay laga faa'iideysanayo dadka macnaha wacyigooda ama garaadkooda aqooneed ama diineed oo aada marka waa maxay u hooseeya, iyo sidoo kale aqoonta marka ay diintooda dadka u leeyihiin ayaa aada marka u hooseysa marka la arko ayaa marka waa maxay aada internetka loogu soo dhexgeliyaa marka. waxyaabahan ka xusi karna waxaa ka mid ah ciidda Christmaska oo kale. marka ciidda Christmaska la xusayo ama ay iyagu xusayaan, gaalada ay xusayaan, islaamkiina aada buu u saameeyey. wadamada islaamka waxaad arkaysaa waa maxay dabaaldegaya, waxay soo hadiyeynaya, ka qayb qaadanaya, xaflada samaysanaya oo Christmaskii waa maxay sameynaya marka. waxyaaba badan baad arkaysaa ciidii leeyahay, maalinta jacaylka, maalinta waxyaabahaas oo dhan la sameynayo. macnaha waxaas oo dhan waa maxay internetka waa la soo geliyaa iyagoo la qurxinayo. marka muslimiintan markay arkeen waa maxay raadkoodii wuu soo gaadhay. marka iyaguna maxay sida gaalada u sameeyaan oo kale ayagu qeyb badan ka mid ah marka ay u sameeyaan marka. nabiguna waa tuwayna lahaa marka calayhi salaatu wasalaam maxay laba ciidood un baynu leenahay, ciidda adxada iyo ciidda marka waa maxay fidriga marka. wuxuu kaloo markaa nabigu nahyiga waxa uu ka dhigay dadka in lagu daydo dhaqanadooda la raaco. qofku waa in dad muslimiin ah marka uu ku daydo uu raaco marka. marka dhinaca marka la eego waxyaabaha ama sanadkii la xusay ama bilihii mar gaar la xusayo aada marka maxay uu internetku gaalada uga faa'iideystay islaamka waa maxay inay soo gaarsiiyaan. ta labaad waxa weeye muslimiinta dhexdooda weeye oo waxaa jira iyagana axaadiis nabiga aan ka sugnaa calayhi salaatu wasalaam oo markaa mawduucaad ah oo aan sax ahayn ama qisooyin been ah oo markaa waa maxay dadka muslimiinta loo akhrinayo oo markaa waa maxay loo sheegayo oo qofkii markaa waa maxay la leeyahay nabiga sidaa yiri, nabiga waxaa sameeyey, nabiga waxaa isku daaweeyey, cod xataa lagugu soo duubayo laga yaabo WhatsAppkii, Facebookii, meel kasta maxay ay saa u yaacayaan. qofkii aqoonta aan uu moodi waxa inay sax tahay musaa markaa waa maxay qofkii uu ku saamoobaya marka.
taana waa maxay nabigu aad buu waa maxay uga hadlay weliba waa maxay dee goodi iyo shadiid adag buu nabiga maxay ka istaagay waatuu nabigu lahaa man yaqul calaya maa lam aqul falyatabawa maqcadahu min annaar macnaa qofkii aniga iga yiraahda waxaanan oran ha diyaarsado marka booskiisa marka naarta waa maxay ka geli lahaa marka nabigu waatuu lahaa man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu qofka aniga maxay iga been abuurta oo been iga sheeg waxaanan oran yiraahda nabiga sidaa yiri qofkaas wuxuu nabigu lahaa macnaa ha diyaarsado marka booskiisa naarta waa maxay ka geli lahaa marka ha diyaarsado marka qodobka saddexaad isaguna u dambeeya waxa weeye saameynta qofku caqiidadiisa internetka ku yeeshay waxa weeye in gaaladu internetka ay u isticmaalaan macnaha hub marka waa maxay ay kaga soo horjeedaan islaamka marka iyo wadamada islaamka marka inay u isticmaalaan hub ahaan waxa la yiraahdaa dee xiliyadii hore dadku waxay isticmaali jireen dee qoryaha iyo waxyaabaha lagu dagaalami jiray dagaalka lagu geli jiray in waa maxay dee si physical ah macnaha waa maxay la iskaga hor yimaado ayaa marka waa maxay dadku ay u dagaalami jireen marka iyadoo aslixada marka dee hubka la isticmaalayo marka laakiin hadda waxa soo baxday baa yiraahdaa gaaladu ay sameeyeen ilaa xarbi alcuquuli baa yiraahdaa marka macnaha inay dagaalku hadda wuxuu usoo wareegay inay la dagaalamaan cuquusha marka iyo marka waa maxay marka afkaarta marka waa maxay ay keenaan macnaha kasoo horjeeda islaamka marka wax yeelaysa dadka muslimiinta akhlaaqda iyo dhaqankooda marka taas marka dagaalkooda hubka ahaa hadda waxay usoo wareejiyeen marka dhinaca marka inay dee xuquusha marka ay la dagaalamaan dadka iyagoo marka internetkan isticmaalaya marka yuhuudda waxa la marka ugu horeysa waxyaabaha sidaas sameeya ilaa kiristaanka marka ay kusoo xigeen ilaa marka maxay ay sameeyaan loo yaqaano isticmaal electronic marka isticmaal caadi la maqli jirnay caadi dadka waa isticmaal baa ku dhacay laakiin hadda waxa la maraya isticmaal electronic macnaa isticmaalka waxaynu ka dhex socdaa marka internetka marka caadiga taasi waa intaa marka waxa la yiraahdaa laba cadow baa jira waxa la yiraahdaa al-acdaa ad-daakhil wal-acdaa al-khaarij macnaa cadowga khaarijka dibadda inaga ka hadda aynu ka sheekeynayno oo yuhuud leh oo kristaan kuwaasoo dhan leh afkaartooda ama lacagaha ku bixiyaan ama dowladda ha taageeraan waa kuwa iyagu macnaha si kasta oo ay usoo fidin karaan waxa ay wadaan dadka muslimiinta usoo dhexgelinaya marka ama application ha sameeyaan ama qoraal ha qoraan ama videos ha duubaan ama waa maxay si kasta u sameynaya kaas waa cadowga khaarijka ee qof kasta arkayo weeye marka waxa jira marka wax la yiraahdo iyaguna al-acdaa ad-daakhil cadowga marka waxa la gudaha cadowga gudaha waxa weeye macnaha waa qof muslim ah oo walaalka ah oo adiga kula nool oo islaam kula sheeganaya haddana waa maxay diinta islaamka haddana cadow ku ah diinta islaamka waa maxay marka la dagaalamay marka Dr. Maxamuud Mazruuqa in la oranayay ayaa waxa uu lahaa macnaha wasaaisha ama meelahan lagu wada xiriiro internetka waxyaabaha hadda wuxuu lahaa ugu daran maaragtay dee cadowga dibadda ah kaga daran muslimiinta waxa kamid ah buu lahaa muslimiinta dhexdooda kuwa sheeganaya marka cadowga ah marka waayo wuxuu lahaa dee qofka gaalka isaga wad u arkaysaa wad u aqoonsanaysaa inuu gaal yahay waad ka ilaalinaysaa waad ka fogaanaysaa laakiin wuxuu lahaa kan kale isagoo muslimka kula sheeganaya isaga dee qof adiga waa maxay kula mid walaalka waa maxay baad marka u arkaysaayo isaga wuxuu lahaa marka waa maxay iska ilaalin maysid waxaana kasii daran buu lahaa markuu weliba dee uu sheekh weyn uu sheegto ama maxay baaxith weyn uu sheegto mujtahid uu sheegto walaalka waa maxay waxyaabo badan uu soo geliyo marka wuxuu lahaa hadda waa maxay waxyaabaha ay dee sameynayaan waxa kamid ah xiliyadan dambe oo dhan dee inay safaxaad marka ama pages ama marka ay leeyihiin marka waa maxay ay kusoo gudbiyaan falsafadaha reer galbeedka xadaaradaha marka reer galbeedka kusoo gudbiyaan marka faasidka marka ay kusoo gudbiyaan waxyaabahaasna baad arkaysaa marka ilxaadka ay soo gelinayaan calmaaniga ay soo gelinayaan ay aad marka waa maxay islaamka dhexdiisiiba ay ugu faafinayaan marka iyagoo marka dan islaamka waa maxay sheeganay islaamna marka waa maxay aabde kuwaas marka waa maxay ma noqonayaan marka waxaad arkaysaa iyagoo muslimiin hadda inagana caadiga Soomaalida hadda caadiga dawladda maalin kasta insan aragnaa qofku waxa la qofku dagaal qof gaal kula jira laakiin marka gudaha ka bilaabmato bay ugu daran tahay marka qofka dee muslimka waxyaaba looga baahan yahay iyo xalka wuxuu noqonayo ayna casharka dambe insha Allah ta'ala ku eegi doona laakiin Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay yuriiduna liyudfi'u nuura Allah bi afwaahihim wallahu mutimmu nuurihi walaw kariha al-kaafir ilaah nuurkiisa iftiinkiisa baxaya qof damin kara marka waa maxay weeraatay marka ma jiro marka
wallahu subxaanahu watacaala aclaa wa aclam.